بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن صاحبيال كسو دواده برامج gaar ah aanu kaga hadlayno booqasho ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta uu ku tagay bangiga dhexe Soomaaliya iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho barnaamijkan waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Ali Cabdulqaadir Cali telefishinka qaranka Soomaaliyeedna waad kala socotaan kusoo dhawaada barnaamijkaasi أنا كهرين رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن عبد الفارح شردون ساعد ويهليان حبنا كترسان قوليه يسوي وزير ذا ما أنت وحى وهلا كرميرة وكنت جاي دكدة مقدشة يبنج الدحى وكهرين رئيس الوزراء الصومالية أيا بغدي بنج الدحى الصومالية كل سعادة قاطع أيولا يا شيء مسؤولين تا بنج الدحى وحنا رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن عبد الفارح شردون ساعد ويساقو مركزي كلن كيسا مدة سعادة قاطع oo kadib kala hadlay mas'uuliyiinta sidii loo dardargelin lahaa nidaamka bangiga ku shaqeeya waliba sidii loo horumarin lahaa wali saaxiibayaal halkaad nagala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliya barnaamijkii ee ra'iisul wasaaraha booqashadiisa ayaanu ku guda jirnaa kasoo bangiga dhexe ra'iisul wasaaruhu waxa uu sii tallaabay dhinaca dekedda magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid socdaalkiisa waxa ku weheliyay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada waxaana dekedda magaalada Muqdisho ay ku sugnaayeen muddo saacada waxaana ay halkaasi kula kulmeen mas'uuliyiinta maamulka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo ay kala hadleen arrimo fara badan oo ku saabsan xaaladda dekedda iyo waliba sidii loo qaadi lahaa tallaabo la xiriirta in guud ahaanba la horumariyo howlaha dekeddaasi ka socda inta kadib ayuu ra'iisul wasaare waxa uu ka soo laabtay socdaalkii halkaasi uu ku tagay waxaana inta kadib uu la hadlay warbaahinta oo faahfaahin ka siiyay natiijooyinkii ka soo baxay kulankii maanta ay la qaateen mas'uuliyiinta bangiga dhexe iyo waliba dekedda magaalada Muqdisho maantayto waxaanu booqasho kormeer aanu ugu kuurgarayno sida ay u socdaan hay'adaha dhaqaalaha ee dalku aynu ku tagnay dekedda customiska magaalada Muqdisho Central bankiga dhexe Soomaaliya iyo bangiga horumarinta dhamaantood waa hay'ado dhaqaale oo isu adeega waxa dantu ahayd hal sano kadib inaan annagu isxukumno oo aynu eegno bal meesha ay ka soo dhaqaaqeen duruuf adagu ha jirto ilaa meesha ay maanta marayaan runtii waxa mudan inaan si cad u sheego ammaanku sida on markasta uga hadallo yaa kordhinta dakhliga iyo ihtimaamka aanu siinayno dhaqaale kobcinto ayaduna ay meel sare nooga joogtaa waxaanu aad ugu kuurgalay sida dekeddu ay u shaqayso sida ay horumarka u samaysay sida customiska oo hawlaha dekedda aad ay ugu xiran yihiin wada shaqooyintoodu ay tahay iyo waxa ka soo baxay halkii sano oo ugu dambeysay wax badan baanu runtii walow horeyba aanu xogogaal uga ahayn laakiin maantayto oo danta ugu culus ay ahayd Oktoobar 2013 iyo Oktoobar 2012 inaanu isu miisaano si bini aadamku waxa uu soo maray waxbuu ka bartaayo wax dhaliil kaliya maaha aanu u ogaano waxa nala mudan ayaanu soo eegnay waxaanu ogaanay oo aadna ugu farxanay uguna mahadnaqaynaa shaqaalihii soo gaarsiiyay halkaas iyo madaxdii maamushay dakhliga dekedda ee bishii Oktoobar dakhliga xagga customiska gaar ahaan bishii Oktoobar 2012 iyo 2013 wuxuu kordhay boqolkiiba 172 2 milyan meeshii laga hadlayay 5 milyan iyo ka korweey sidoo kale hawlaha dekeddu waxa ku soo korortay halkii sano u dambeeyay hawlo tiro badan oo aan horay uga jirin waxa soo kordhay dhoofka xoolaha waxa soo kordhay containersku inay yimaadaan dalka waxa soo kordhay systemka shaqada oo waqtigii uu jiray ka badan waxa soo kordhay qalabka handlinka oo gabi ahaan aanu ugu xirayn inaanu dad ganacsataa ka kireysano laakiin maantayto dhammaan heer kasta ha noqotee qalabka aanu haysano annaga iska leh dadkii ganacsatada ahaa oo aanu ka kireysan jirayna annagoo raalli iska ah maanta inaanu ka gadanno annagu oo annaga aan wada isticmaalo yay maraysaa halkaas waxaa arkaysaa hal sano kadib waxaa noo soo baxay deked ayadu ismaamusha oo qalabkeeda ama ha noqoto qalabka badda ama ha noqoto qalabka handlinka lagu sameeyo dhammaan ayadu iska leh kana horumarsan siday ahayd investment ilaa 6 milyan ilaa 7 milyan ahna
ay galeen waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa dowladda Jabuuti oo si gaara nooga gacan siisay qalabka isticmaalka dekedda waa jirtaan dhibaatooyin weli aanan ka gudbin sida maaragtay congestionka sida aanu ula diriir lahayn sida maaragtay hawlo badan oo la xiriira warehouseska dekedda aanu ka yeeli lahayn hawlo tiro badan waa jiraan marka waxaanu soo aragnay runtii marka loo qiyaaso Oktoobar ilaa Oktoobar labadii sano isku jiray dekeddu inay samaysay horumar ballaaran waanu uga mahadnaqaynaa madaxda iyo shaqaalaha dekedda oo maamulay hawshaas qorshaha iyaguna waxa weeye intaa kuma ekaanayne inaanu sanadka cusub qiyaasno dekedda oo ku shaqaysa 30% capacity-geeda ugu yaraan inay 70% iyo ka kor ay gaadho hawshaas waanu u hawlgallay waxaanu la galay shirkad Turki ah oo caalamka shirkadaha ugu horeeya kuwa wax maamula in maamulka dekedda gacan ku haynteeda iyo maalgelin cusub inay u samayso aanu iska kaashano si aanu raalli ka nahay oo qaranka Soomaaliya danu ugu jirto dhankaasi waa dhankii dekedda dhanka furdada ayadana sidoo kale aad baanu ugu hawlgallay waxaanu ku faraxsanahay inaanu ogaano inay maamuleen shaqaalaha furdadu muddadii halka sano ahayd koror dhan 172 walibana haddii intaas waxyaabo kale oo aynu dhihi karro waa lagu dari karay aanu ku sii darro 300 iyo ka badan ay gaari kartay waanu hambaliyaynaynaa duruuftay ku shaqaynahayeen iyo meeshay gaareen hadda waxaa noo qorshaysan aad baanu si kastooy u badan tahay misana taargetka iyagu waa uu ka sii badan yahay waxaan marka rajaynaynaa ayadana waxyaabaha aynu soo aragnay iyo tallaabooyinka aynu qaadi doonno ama ha noqoto aan ka qaadno xagga warehouseska oo aynu gacanta wasaaradda dib ugu celin doonno ama ha noqoto xagga saacadaha shaqada wasaaradda furdada iyo central bankiga laantiisa dekedda aynu ka qabanee ama ha noqoto talooyinkii badnaa oo aanu soo qaatay maanta iyo intii anigu aan dul istaagayba ayaduna waxay noqon doontaa haddii alla idmo mid ka kororta intay maanta tahay ugu yaraan 200 iyo wax ka sii koreeya waa sida aanu anagu runtii u jecelahay inaanu u aragno koritaanku halkaas waa dekedii iyo airport iyo dekedii iyo customiskii waxsan baanu ku soo aragnay isbedelka halkii sano ka sii badanna waa rajaynaynaa meelaha kale aynu sida gaarka saaka ugu kurgalay waxa kamid ahaa bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo bangiga horumarinta bangiga dhexe ee Soomaaliya waxaanu ku talagalay si aynu u maamulo dhaqaale nadiif ah oo sida uu nagu soo galahayo ay caddahay in bangiga dhexe waliba gaar ahaan waqtigan oo aynu galay new dealka hal sano ka badanna aanu shaqaynayno horeyna qorshaheeda aanu u dejinay in wax walba oo dawladda lagu kaalmaynayo laga bilaabo balaanka inay maraan balaanka dawladda iyo mudnaanta dawladdu siday u dhigato ay marto miisaaniyadda iyo systemka dawliga ah macnuhu waxa weeye bangiga dawladda arintaas ayada ah hadaa aanan diyaar u ahayn oo bangi dhexe oo u diyaarsan in uu systemkiisu qaadi karo waxa aan filayno gaar ahaan ama new dealka ha noqoto ama caalamka deeqaha aan ka sugayna ha noqoto ama dakhliga gudaha aanu ka sameeyna ha noqoto iyo waxyaabaha xataa naga soo gala dibadda hadaanan lahayn central bank awoodiisu xajinka dho intaas waxa aan sugayno waxba kama jiraan waxa marka aynu sameynay oo aynu ka wada hadalay sida awoodda bangigeena dhexe ay u maaj garayn lahayd hamiga badan oo aynu wadno 2013 afkaar badan baanu ka dhiibanay talooyin badan baanu ka dhagaysanay waanu u mahadnaqaynaa runtii shaqaalaha bangiga dhexe iyo shaqaalaha bangiga horumarinta duruuftan la joogo iyo wixii aanu soo aragnay oo ay maareeyeen bangiga dhexe waxaan si gaara uga soo ballannay ana rajaynaynaa in sanad kadib wax la taaban karo aanu ku gaarno lacagihii badnaa oo Soomaaliya muddada dheer bannaanka uga xayirnaa inay warbixin cad iyo waxa gudboon oo tala ah ay ka keento sidaas bangiga iyo wasaaradda maaliyaddaba waanu ku soo ballannay tilaabana waa ka qaadi doonaa marka aan sidaan leeyahay oo hay'adaha dhaqaalaha aan xoogga saarayno waxaan rabaa inaan in yar ka leexdo
ammaanku waa kow wuu noo yahay laakiinse dhaqaalaha kordha ee maalgelinta shaqo abuurista iyo in la dhiirigeliyo cid walba dadka Soomaaliyeed gaar ahaan oo banaanka diasporada ah oo jira inay dhaqaalahooda iyo khibradooda la soo laabtaan si kororku dhulka uga dareemo waa muhiim hal gacan kaliya lagu horumarin maayo wadankeena ama mas'uuliyadda dawladdu kuma eka ammaanka kaliya dhaqaalahaanu korinaynaa si duruufta dadku inta wax uga bedelanto ay u fududaato dawlad dhisidda wixii aan maanta soo arkay wax aan aad ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna aan ugu hambalyeeynayo gaar ahaanna aan muujiyo inaanu raalli ka nahay madaxdii iyo shaqaalihii maamulay horumarka aynu soo aragnay weeyaan insha Allah hadda wixii ka dambeeyana waxay noqon doontaa sanadka cusub waxa aan ka filaynaa wixii hadda sanadkii hore aanu ka soo aragnay wax aad uga fog waxaanu arki doonaa haddii Ilaahay yiraahdo dekada oo boqolkiiba 30 bay hadda ku shaqaysaa 70 ka badan ku shaqaysa customiska oo boqolkiiba 170 iyo 2 kordheene boqolkiiba 300 iyo ka badan kororta central bankigeena oo u diyaarsan in uu noqdo systemka dawladda wax u soo maraa wax walba oo dawladda dhaqaale ah oo soo galaya waa khasab inay central bankiga soo maraan xisaabo kale ma ogolaan doono haddii alla idmo si ay kalsoonida loo baahan yahay dadka yaga aanu u siino oo aanu u tisno gacmaha yagu inay nadiif ka yihiin caalamkuna uu arko waxaana soo galaya inay dariiqii saxda ahaa ay marayaan waxaan sidoo kale hambalyeeynayaa bangiga horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya oo asna isu diyaarinaya waqtigan cusub horumarinta iyo dib u dhiska Soomaaliya doorkiisa kaga aadan wax walba oo aanu soo marnay waxay nagu beereen rajo wanaagsan waxaan rajaynaynaa duruufta aan marayna anagoo og oo hal maalin baan boodaynaayo Soomaaliyadii aan ku riyoonaynay gaarayna laakiin runtii isbedel badan ayaanu samaynay sanadkiina soo dhaafay mid ka ballaaran oo dadkeena iyo caalamkuba si buuxda ay u aamineen wixii aan soo qabanay si buuxdana noogu garab taagan yihiin aadna aan ugu rajo weynahay yaanu isu diyaarinaynaa waa mahadsantihiin waxaanu rajaynaynaa waxa aan qorsheynayno ilaahay idankiis inaanu ku guuleysan doono guud ahaan saaxiibayaal barnaamijkii gaarka ah oo aan idin la socodsiinayay anigoo ah Cali Cabdulqaadir Cali waa inaga inta waxaana barnaamijka aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliya tan ay kulantadeena dambe aan ku kulmi doono barnaamijkan lamida hadduu Allah awoodo sare leh oo ogolaado waxaanu inkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo Somali weyn iyo